ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبارو واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي هذا مانت وين هرجبسنا هدي عدكي قد نقل ويدان وين كره هرجلنا يا مركب مانت حنبرنا هدو اللي ما دام chapter كوباد وصار ماضي مركو حسمينا summary أما العلس 10 دي لمان أو خلاصين هدو اللي ودول مرينا يعني أنا وقف في سنة ماليه نضافي عندي يعني حسوسين يعني و reminding one another حسوسين marka chapter ka saas uu ku saabsanaanaya dhamaadkiisa haduu aad leedmana chapter ka qofka u baahan dhanka commentiga comment ku soo qoran ninka u baahan then I'll just post it as a link amalan soo dhigaya haduu aad leedmo si aad ku hesho marka waan guud galinaa cashkan insha Allah marka cashka summary-giisa waxaan soo baranay cashkan soo qaadanay summary ahaan u sameeyo waxaan soo baranay wax la yiraahdo basic sentence pattern qaabka jumlada oo basic ah loo dhiso oo pattern waxa la yiraahdaa qaababka ay isu raacaan ama isu shay walba shay kale loo saari karo isku pattern ama qaabkii wax loo tixi karo so basic sentence pattern ka waxaan u adeegsanaynaa inta badan verb ka be waxaan ka soo hadalnay dhammaan verb ka soo isticmaalnay verb be waxa inkastoo walaw jiraan verb nooc badan laakiin mana gaari wali waan baran doonaa haduu aleedmo verb to be ga ayaan hadda ku jirnaa maadaama aan nahay beginner so waxaan aanay an elephant is big an elephant is big أنا حسوسنا مركب ما دام أنا عن elephant مروديك is big وين هاي وحنا هناي شيء لوصف فيها جرو شيء كله حتى إيرها جملة عن elephant كلها كوجو جي ومرودي جملة إيه كامل انتهى لكن أنا نصف فيها أما فاهمين إيراد كبيح مركان ربع عندها is verb كان سو قلنا big ما قدر يا بعليها an adjective so here we have subject plus be three basic completions سميناها noun pronoun iyo mid kale let us see intaan aan hore sameeynin ba I am a teacher now a teacher is a noun okay so waxyaaba basic completion ka lagu dhameynayo jumlada ayaa waxay tahay noun tan labaad waxaan yiri she is happy so she is happy so hadda wax ugu weyn meesha aan rabno inaan marka aan isu xasuusanahay tahay inaan soo qaadano subject anaga ku darayna verb be laakiin saddex completion kala nooc sameeynayna maxaa ku complete gareynayna either noun adjective or another one so she is happy kan kala wuxuu ahaa she is at the gym or I am downstairs waa place so haddaad xasuusato waxyaabaha aan ku soo qaadano casharada hore wuxuu ahaa noun pronoun adjective iyo a place kaasoo badan uga hadlayni verb ki place ki aan caadi u qaadanayni oo meesha goobta ha kaasoo ku express gareynayni ama aan ku muujinayni goobta she is at the gym I am downstairs so that one is an expression of place so marka meeshaan waxaan xasuusina inaan noun soo qaadanay adjective ka soo marnay place ka soo marnay laakiin intaas kuma eko uu si soconaya waa midba uu si balaaran doona then practice aan sameynayna an eagle is a bird is it correct macnaha dhankan waxaa laga eegayaa inaad yani fahantay qaabka la isu raacinayo jumlooyinka an eagle iu ka bilaabanaya so daraad waxaan xasuustaa qof ba comment igu soo weydiiyay igu dhahay qaabka aan ku kala saari lahaa consonant-ka iyo vowel-ka halkan aan ku celinayaa maanta ka laga faa'iideysto consonants oo c iyo vowels oo v ka bilaabanayo waxaan erayada Englishka ama alfabeetada waxay ka bilaabataa a ilaa z waxa ku jira a ilaa z dhaxdooda eraya la yiraahdo vowels a e o u shantan oo Soomaaliga lagu yiraahdo ma shaqal la yiraahdo shibin I don't know shaqal nayna umaleena oo Soomaaliga lagu yiraahdo shaqal ka san jeclahay ayaa waxa la yiraahdaa vowels macnaheedu waa 26 xaraf waaye ama letter waaye out of those 26 5 ku jirta a ko 2 3 4 5 shantan ayaa waxa la yiraahdaa vowels ko 25 shantan marka laga saaro ko 25 a ilaa saddexda soo harayo ayaa waxa la yiraahdaa consonants okay
consonants iyo vowelka qaabka marka an iyo a aan u kala qaadanayno noo kala sheegayo ereyga hadduu shantan mid ka mid ka bilowdo a e i o u wuxuu qaadanayaa an haddii 21 soo haray oo shantan ka maqan yihiin ka bilowdana wuxuu ka bilaabanaa a waa isfahan so an eagle is a bird waa correct jumladaas way saxan tahay okay eggs is healthy so haddaan dib ugu noqdo kan marka jumlada markaad fiiriso waa singular waa jumlada singular waay okay because a e an for singular nouns and nouns ka singular ka loo isticmaalaya eagle hadda s lama jirto waa hal so an saasoo ku qaadanaya bird s lama jirto ama plural maahan a saasoo ku qaadanaya laakiin kan aan fiiriyay marka eggs macnaheedu maxaa waaye ukumo is healthy so labada verb markaad isku fiiriso eggs oo plural ah iyo is oo singular verb ah isma qaadan karto laakiin maxaan leenahay this is wrong isn't it? It's no so meeshana waxaa naga rabaa inaan plural ka dhigno aan ka dhigno plural verb aan qaadan eggs are healthy saasay marka waxay ku noqonaysaa jumladii sax so marba isla fiirso jumlada verbka markuu yahay singular noun maxaa la jiri nounka waa inuu noqdo singular plural hadday tahay verb uu yahay ama nounka uu plural yahay verbkana waa inuu plural noqdaa Japan and China are countries this is correct because laba noun markaan isku darno ayaa waxayna siiyaan plural that's what we said this one is correct then the lion are big no it's wrong the lion the one another article iyo an marka laga reebo the waa specific articles laba article-yada loo isticmaalo shayga specific lion waa specific waa xawayaan kaliya lion kaligiisa la yiraahdo qof wax kale magac la wadaaga male that's why we say the lion the sun the moon bisha qorraxda waxyaabo waxa jira specific kuwaasna waxaa la raacayaa the article the waa gaari doonaa hadda cashirkeena hadda kan u horreey kuma jirin laakiin wuu soo socdaa the lion is big sorry the lion are big so lion waa singular laakiin verbka la siiyay muxuu yahay plural wrong way so meesha waxaa leenahay no the lion waxay u bedelaysaa is the lion is big the lion is big the boys is at the beach so the boys is at the beach the boys s la jirto waa plural laakiin verbka muxuu yahay singular no ma qaadan kara marka so the boys are at the beach the boys are at the beach so at waa place at the beach horaan usoo marnay so tani kulanti dambe xiisale cashirkeeni chapterka koowaad halkaas uu ku dhamaaday waxaan idinkiga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum